waxaa lagu jiraa maalmihii kala firxadka maleeshiyaadka shabaab iyo guud ahaanba burburka kooxda nabadiidka ah kadib markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadeen hawlgallo iyo beegsi qurux badan oo gobolada dalka loogu xoreynayo maleeshiyaadka shabaab. nabadiidka shabaab waxaa jiif iyo joogsi u diiday geesiyiin la siiyey tababar buuxa lana ilaaliyey xuquuqda ay leeyihiin isla markaasna haysta madaxweyne garab taagan oo markasta ku dhiirigelinaya difaaca dalka dadka iyo diinta. wiilal idinkoo kala ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo magaaladan kama tegayno kaliya maaha waa soconaynaa waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogaan annaguna waa idin garab taaganna dumarkiyo xanuurta ninkii kugu dureeya dariiqada bannaysay inaad ku duushee dariiqada bannaysay inaad ku duushee hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya marka la fiiriyo geesinimada iyo niyadda ciidamada xoogga dalka juhdiga iyo muhiimadsiinta uu madaxweyne Farmaajo geliyey dhismaha iyo qalbaynta ciidamada waxaa muuqata in la soo gaaray dhammaadka jiritaanka maalmihii argagixisada. nabadiidka shabaab waxaa laga xoreeyey oo gacantooda ka baxay deegaano muhiim ah sida Awdheegle. hawlgalka waxaa hogaaminayay kumaandoosta sida gaarka ah u tababaran kuwaas oo shabaab horey 10 lama ilaawaan ah ugu soo dhigay markii ay ka xoreynayeen deegaanada Bariire iyo Siibad. waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan marna ma yeelayno marna ma u dul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku raadaan ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno. firxadkii shabaab ee soo galay Awdheegle ilaa deegaanka Shaam waxa ay noqdeen intooda badan kuwo la laayay dhaawac iyo wax la qabtay iyadoo ay soo baxayaan warar xaqiijinaya in dhaawac uu soo gaaray afhayeenkii nabadiidka Dhagarqabe Cali Dheere. deegaanka Shaam ee dhaca galbeedka Bariire iyo Awdheegle ayaa ka mid ah goobaha jabka xoogga leh loogu geystay maleeshiyaadka shabaab. taliyaha ciidamada lugta Generaal Odawa Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha hawlgalka hogaaminayay ayaa yiri waxaan hawlgal qorshaysan ku qaadnay deegaanka Shaam ee dhaca galbeedka inta u dhaxaysa Bariire iyo Awdheegle waxaan jab xoogan u geysanay maleeshiyaadka shabaab oo iyagu u bareera had iyo jeer daadinta dhiigga iyo dhaca xoolaha shacabka Soomaaliyeed annaga oo la wareegnay gacan ku haynta deegaanadii ay ku sugnaayeen. ayadana jabay kala kulmeen runtii aad u weyn oo muxuu ahay ciidamadu ay u geysteen haddana waxaan ku jirnaa baaqsigooda iyo muxuu ahay ii sheegay meydadka iyo dhaawacyada ay ku hoos jiidayaan runtii ay dhirta ku hoos jiidayaan inaan ka reebno ayaan hadda ku guda jirnaa ciidanka ilaahay weyna noo suurtagelaysa. hawlgallada ay wadaan kumaandoosta xoogga dalka ayaa soconaya ilaa iyo inta guud ahaan dalka laga sifaynayo maleeshiyaadka shabaab. waxaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo ku amray saraakiisha ciidanka inaan gadaal loo soo noqon inta ay taaka ka mid ah dalka joogaan cadowga ku caanbaxay xasuuqa shacabka Soomaaliyeed.